xaflad ballaaran oo lagaga hadlayay sidii ay dadka la haybsooco doorkooda uga qaadan lahaayeen arrimaha bulshada ayaa lagu qabtay hotel barwaaqi magaalada Burco. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka akademiga ee ololeeya kor u qaadida iyo dhiirigelinta dadka la haybsooco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta laamaha dawladda, ururada bulshada, abwaano iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. mas'uuliyiinta munaasabadaasi xalay ka hadlayay ayaa dhammaantoodba dareenkooda ku muujiyay sida ay uga xun yihiin haybsoocidda dadkani lagu hayo. waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka akademiyada Barkad Jaamac Xirsi oo ka xog waramay muhiimadda ay kulankani caawa u leeyahay dadka la haybsooco. markaasna waxa uu gudoomiyuhu iftiimiyay doorka ay dadkani kaga jiraan bulshaweynta ku dhaqan gobolka Togdheer. soocaya waa arrimaha guurka oo kale iyo wixii ku tacalluqa laakiin tira badnaanta xaqa muwaadinka qofku leeyahay sirjinaysa ereyga minority-na waxa sheegan karaya afraad dalka aanu dhalan oo refugee ku marka taa waa idinka wacyigelinaya xitaa moral hazard bay sababaysaa inaad aqbashaan in laydinka sabay inaad iska daysaan baa soo dhaweynaya waa darafka wax tabanaya. sidoo kale waxaa iyana munaasabadaasi ka hadlayay isduwaha barnaamijyada akademiga Xuseen Ibrahim Xasan, looyarka komishanka qaranka Ismaaciil Cabdi Daahir, waxaana ay si buuxda uga hadleen sababaha la xidhiidha takooridda dadka la haybsooco oo ay sheegeen inay bulshada u hayaan shaqooyin muhiim ah oo la xidhiidha dhaqanka iyo hiddaha Soomaalidu leedahay. waxaa kaloo munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaha jaamacadda Burco iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, waxaana ay ballanqaadyo kala duwan u sameeyeen dadka ay haysato aafada takooriddu oo ay sheegeen inay ka caawinayaan dhinacyada waxbarashada iyo abuuridda shaqooyinka. waxaana ay ku booriyeen bulshadani inay iska dhisaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha. barsaabka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo soo afmeeray munaasabadaasi ayaa u mahadnaqay ururka akademiga oo soo qaban qaabiyay munaasabadani. Ibrahim Xirsi Maxamed, magaalada Burco.